رئيسل وزراء جمهورية فدرالك الصومالية مدن حمزة عبد برre ayaa ku jiro kulankiisii amba booqashadiisa rasmiga ah ee ku jooga dalka Kenya maanta waxay maalintii labaad shalay sida ula socotaan waxa la saxay heshiisyan dhowr ah oo daba socday kulamo joogto ah la xiriir iskaashiga labada dalka Kenya iyo Soomaaliya heshiiska shalay baa la saxay wasiiradii Soomaaliya ka socday iyo wasiiradii ka socday dalka Kenya wada saxay maanta waxay ahayd maalintii booqasho sharafeedka madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya oo u sameeyay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya xaflad ballaaran oo aad loo soo agaasimay oo heer sare ah ayaa waxa lagu qabtay deegaanka uu ka degan yahay madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya magaalada Nairobi shirkaas kulankaas waxa uu ahaa saddex qayb ayuu ka koobnaa maanta mid wuxuu ahaa kulan gaar ah oo albaabadu xiran yihiin oo yeesheen ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya kulankaas waa arimo waxa looga hadlayay si xoojinta xiriirka labada dal laakiin waxa fooda lagu saaray ama si toos looga hadlayay arimo muhiim u ah labada dal shirka markuu dhamaaday qaybta labaad wuxuu ahaa shir laba geesood ah oo labada dhinac ay kala hogaaminayeen labada hogaamiye ra'iisul wasaarahayna iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya shirkaas waxa labada dhinac fadhiyay qaar kamid ah golaha wasiirada dalka Kenya iyo qaar kamid ah golaha wasiirada dalka Soomaaliya waxa dhinacooda taagnaa fadhiyay guddigii farsamo ee ka soo shaqeeyay howlaha la xiriiray heshiisyada la isla galay shirkaas marka waxa looga hadlayay amba labada dhinac isku wadaarsanayeen sidii loo sii adkeyn lahaa qodobadii maalintii hore lagu heshiiyay sidii iskaashiga labada dhinac arrimaha muhiimku si ah oo aan isleenahay labada dal dhaqsay wax uga baahan wax laga qabto labada dhinac waxay ka hadleen waxyaabaha isleeyihiin in la dedejiyo xilliga la joogo waxyaabaha u baahan xilliga fog wax laga qabto waxa kale lagu soo bandhigay aragtida guud ee dawladda Soomaaliya ay qabto ee xaaladda guud ee regionka ka qabto dhanka Kenya waxay soo bandhigtay waxyaabaha ay qabaan dhankooda concernka ay ka qabaan amba dareenka ay ka qabaan amba u baahan wax laga qabto waxaana shirkaas oo shirkii ugu horeeyay oo noocaas amal ah ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu galo oo qaatay si official ah u dhacay waxa taa ku xigay in labada dhinac la sameeyay oo madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya uu qabtay qada sharafeed loo qabtay magaca ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa ka soo qayb galay xubnaha ugu soo sareeyay dawladda Kenya waxa ka maqnaa kaliya xaqiiqdii oo la dhihi kara madaxweynaha Kenya ayuu ahaa oo asagana shir furayay maanta laakiin shirkaas qada sharafeedkaas waxa lagu martiqaaday ra'iisul wasaaraha magaciisa lagu dhigay karaamadiisa lagu dhigay waxa kale ka soo qayb galay xildhibaanada dalka Kenya gaar ahaan xildhibaanada Soomaalida ee u fadhiya baarlamaanka Kenya ku dhex jiro ayagana waxay ahayd qada sharafeed ee si qurux badan ay ku dhamaatay qadadaas inta saddex ka horna waxa jira wax la yiraahdo price for release amba war saxaafadeed ka soo baxay shirka muhiimadda uu leeyahay ra'iisul wasaaraha imaatinkiisa meeshan iyo kor u qaadida mastawaha uu ku joogo dalkan oo ah markii ugu horeysay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya loo qaabila mastawa noocaas amal ah waxay kaliftay in maanta war saxaafadeedkii uu akhriyo wasiirka arrimaha dibadda dalka Kenya isla markaasna ah madaxa golaha wasiirada ee dalkaas macnaha taa waxay muujinaysaa muhiimadda qaaska ay leedahay qodobadii ka soo baxay waa la qaybiyay saxaafaddu waa loo qaybiyay shirkii qaybtiisa ayuu ku dhamaaday waxa galabta u suura gashay ra'iisul wasaaruhu inuu soo boqdo Kenyan School of Government oo ah school lagu barto arrimaha la xiriir dawladnimada iskuulkaas hadda wuxuu tababar ka wadaa magaalada Muqdisho ka sameeyay ilaa 600 oo qof oo tababar siiyay waa iskuul caalami ah dad badan baa ka soo baxay dhinacyo badan ah waxa laga hadlayay iskaashiga labada dhinac iyadana waxa la isla gartay in la kordhiyo dadka Soomaaliyeed wax ku baranaayo iskuulkaas xiriirka labada dhinac la kordhiyo ra'iisul wasaaraha intuu meesha joogay waxa uu soo gashay amba lagu martiqaaday amba lagu qadariyay inuu talaalo geed lagu magac dar Hamza oo ah geed mataqaana nooca la yiraahdo maangaha amba cambaha Soomaaliyeed ay tiraahdo iyadoo taasi adkeynaysa xiriirka labada dhinac waxaana la rajeynayaa dad badan oo Soomaaliyeed inay wax ku bartaan iskuulkaas si ay kaalin uga geystaan tabaqaadka dawladnimada Soomaaliya waa maasantiin